Do you understand? So it's not scripted mind, it's coming from my heart. So okay. Hello, السلام عليكم. magacayga waxaa la dhahaa Safiya. Kusoo dhawaada Safiya Cali Ilaahay yiraahdo. Maanta waxaan rabaa inaan ila shari gareeyo wax yar oo maxaa la dhahaa ku saabsan ama qof markuu aad caawinaysid ama aad saaxiib la tahay ama qaraabo aad la tahay ama walaal la tahay inaadan qofka waxaadan ku arkin inaadan ka sheegin wuxuusan ahayn inaadan ka been abuurin haddaad aragtay xataa qofkaas asagoo wax suubinayo waxana tuu suubinayo walaal baa leeyahay waa in la iskala hadlo oo tartiib aad dhahdid hada walaalay waxaan ama walaalo waxaan way kugu xiyeen iska dhaaf in la isdhaho oo maxaa la dhahaa qeyrka la isfaro ayaa fiican laakiin dad daris ah ama daris dad saaxiiba ah intay adoo dhibaataysan ama wax kugu dhacay ama dhib walba iska jira oo dhib kugu dhacay intii lagu imaado ama lagu caawiyo ama lagu dhaho oo lagu caawiyo oo xaq ilaahay waxa fiican marka qofka caawinaysid xaq ilaahay inaad ka caawisid inaadan ku caawinin allah qofkaas uu caawiyo saan waayo in lagu sheego aadan u caawinin wax walba waxa ka fiican ina xaq ilaahay aad qofka u caawisid markay daacad ka tahay aad qof aad caawisid ama ceebtiisa aad asturtid adigan ilaahay ceebtaada ayuu asturayaa qof walba oo qof fiican oo isku filan ma jiro nin walba waxa waaye mar asagoon bay wax asna helayaan marka waxa fiican inaadan nafsi gelin inaadan qofna nafsi ka gelin inaadan qofna been ka sheegin inaadan qof nabiibiyin inaadan qofka waxaadan ku arkin aadan ka sheegin qofka wuxuusan ahayn inaad korka aadan ka saarin wax walbood ku aragto qofka inaad u ceeb asturtid because qof walaalka marka u ceeb asturtid ilaaha ayaa ceebtaada adna ay asturayo Soomaaliya haddaan meel walba joogno horta qofka waan caawinaa oo ku imaanayna oo ku caawinayna oo ama waa la caawinaya ama waan is caawinaa iscaawinki kuma ekaysiinayno banaanka tagaya ama saaxiibada kala u tagaya ama darskeyga kala u tagaya alla tiima soo aragtay saas aheede kan waayo kana ka soo baxayo kana ka waxaan jirin iyo waxaan meesha oolin iyo wax alla waxaan meesha yeelin ayaan iska been abuureena ama wax yar ama aragnaybo wax yar aragnay oo qofkaas ama uu ku dhibaataysan yahay ama uu dhibaato ka haysato inaan ku caayno ma ahan in oo maxaa la dhahaa dhibaato xaq ilaahay ka imaato inaan isku caayno ma ahan qofka marka walaalka ah waxa ku caawin kartid ku caawi ma caawin kartid hadal macaan ku caawi wax caawishada kali ma ahan inaad qofka wax tartid ama wax siisid lacag iyo wax caawisho ma ahan taas wax caawisho waxa waaye wanaaga la isfaraayo qofka walaalka markaad caawinaysid waa inaad wanaag fartid hadalka macaan waxa waaye waa waxaan lacagna lagu gadan karin waa waxaan la heli karin qofka walaalka baa ku siin kara qofka fikirka fiican ayaa ku wanaag ku sheegi kara marka in wanaag la isfaro qof gabar dhibaataysan oo walaashayo adoo kala ah intaad u imaatid inaad xan been ah ka qaadidood banaanada ku wareejisidood waxaan jirin iyo waxaan loo joogin inaad ka sheegtid waxa waaye waa wax aad iyo aad u xun waa waxaan sharaf noo ahayn marka waxaan idhi lahaa saaxiibada markay inay kugu xun yihiin aad iska aragtid iska jar saaxiib xun markaad aragtid
jar because qofkaas kuma ahan saaxiib waa qof cadow ah soo maadan fahmin because qofkii xumaa markaad iska jartid ayaa wax xun iska jaraysa qof walba wuxuusan ahayn qofku kooleen kara ma jirto maanta qofka idinka kamid hadii la dhaho adiga Safiya tahay Safiyana ma tihi cid ma kugu kooleen karto waa maya wuxuu yahay ayaad daba soconayso waxaad tahay adaa is og banaanka lagu mariyo wax alla wixii la rabo soo ma fahmin dantaada ka raac yeysan hoos ku dhigin qof wuxuu ka sheegay yeysan niyad jab kugu ridin qof wuxuu ka sheegay wax walba tahay hadaa fiicanta hadaa xunta adu unbay ku anfici qof kale anficaysa ma jirto marka waxaan idii lahaa wixii xun saaxiibka xun waa la jaraa iska jar banaanka ka mar boqol saaxiib aad leedahay waxa ka fiican hal saaxiib ood ku kalsoon tahay saaxiibka marka muxuu yahay waay marka wax u sheegatid kii waxa xunna ka celinayo waxa fiicanna ku faraay laakiin ku oo hortaada taagan oo ku dhahay waxaas ma suubin kartid horumarkaas ma gaari kartid saa ma suubin kartid negative aha kugu la socdo saaxiib ma ahan kaas banaanka intuu tago ka sheegayo waxaan loo joogin iyo been iyo nabiibiye ka faraayo ka saaxiib ma ahan aan walaalna ma ahan marka waxa saaxiib aa wadatid oo dhan hadii xun yihiin wada jar wax xumnimada intaan iska dhaafno on qalbada isku furno qalbada aan isku furno oo walaalnimada iyo darisnimada iyo saaxiibtinimada iyo qaraabanimada aan xasuusano ayaa fiican nabiyada inaan iska dayno qofka wuxuusan ahayn inaan korka ka saarin haduu qofkaas xataa uu xun yahay inaad wax fiican fartid inaad dhahdid waxaas hadda way ku xun yihiin iska daa inaadan dhihin alla hebel saani saanu ahay xumaantiisa aad banaanka dhigto because bari ka maalin adna xumaantaada saasay banaanka u oolaysaa saasa adna wax lagaaga sheegaya laakiin qof walaalka dad u ceeb asturtid adigan ilaahay qofuro raximka ayaa ceebtaada asturay waxaa fiican waxaa ceebta astur ilaahay ceebtaada adnaha asturo taasaan idhihi lahaa saaxiib xun hadaa leedahay iska jar qof horumarkaaga aanan kula jecleen haduu yahay iska jar qof xumaata ma ogiye samaan aana kula rabin haduu yahay iska jar because intaa wax qofka aad daba socotid horumar ma gaaraysid adigana nope markii lagu imaado gurigaaga lagu imaado ama qof in lagu xanta lagu imaado gurigaaga lagu xamanaayo oo waqtigaaga lagu dhuminaayo adoona waqtiga iska dhuminin qofkiion kugu xanaaqin inaad dhahdid walaale iyada iyo ilaahigeeda ama asagii ilaahigiiska la xisaabtama ilaahigooda la xisaabtamaye aan iska dayno xantooda aan iska dayno inaad dhahdid ayaa kugu fiican laakiin intaad qof oo maxaa la dhahaa nabiibiya intuu ku imaado wax ku sheego adigoon wixii aadan hubin wixii aadan kor joogin aragti aadan u lahayn wax alla aadan ahayn laga yaabo qofkiiba aadan aqoonin inaa bari ka maanta adna qof kale u sheegto taa waa xumaata socoto qofkii ma taqaanid wuxuu yahay ma kasaysid waxba ha ka sheegin hadaa kasaysid hadaa kasaynin nope xumaatadu suubiyo asaga iyo ilaahaygiisa kula xisaabtamaayo maalinta yawmul qiyaama ayaa lagula xisaabtamaya don't be judgmental qof ha judge gareen qofka ilaahay unbaa judge gareen karo adiga iyo xumaantadaada la bahalkiye la xisaabtam
adiga mustaqbalkaaga waqti aad dad intaad ku xaman lahayd waqtigaaga wax geli waqtiga dadka gelin lahayd ama intaad telefoon u qaadato ama guri dad aad u tagto intaad gelin lahayd waqtigaaga waxa fiican inaad wax fiican gelisid wax baro qof kale caawi ilmaha daaleed ilmahaada caawi laakiin qof ha ku mashquulin qof bila aadan adoo kala ah ha ku mashquulin wax been ha ka sheegin wuxuusan lahayn korka ha ka saarin because maanta maalinaad ahayd ayaad ka jawaabeysaa marka meel walba aad joogtaan waxaan idhihi lahaa is ilaaliya ilaahay hani ilaalsado ilaahay ilmaha hani ilaaliyo idinkana hani ilaaliyo samaanta aan safarno xumaanta aan iska dhaafno meel walba aad joogtaan waxaan iga tagay qeyr iyo barwaaqo share garee videoga haddaad ka heshay comment garee like saar maasha allah kuna soo dhawow Safiya Cali gacmo furan ayaan iigu soo dhaweynayaa hadduu ilaahay yiraahdo welcome maasha allah السلام عليكم شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا